ودقنكي حولا دولكيغا ليساري هبالي هو لي هذه الشير ورسعود باهني هو لي هذه الشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وانقد halka aad naga daawanaysaa waa Haybid Media Production. maantana waxa ay soo horfadhiya odaydiina ku haysaan waa labadii saaxiib Cabdi Ibrahim Ahmed iyo Hashim Abdullah Ahmed. maanta waxaan idin wadaa barnaamij kuwii hore ka cusub oo ka xiiso badan. barnaamijkaas muxuu yahay? waxa weeyaan hadal idinku daalin saaxiibka Hashim wuxuu inoo wadaa gabaygaasi waa gabay aad iyo aad u dheer. gabaygaasi waa gabay aad u qiimo badan. gabaygaasi waa gabay idin xiiso gelin doona. gabaygaasi waa gabayada صاحبك هاشم waa ku soo dhaweynaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaan daawadayaasha dunida dacaladeeda ku nool waxaan ku salaamay salaanta islaamka. maanta waxaan halkan kusoo jeedin doonaa waan ku eegi doonaa barnaamijkan gabayadu way kala yihiin. waa gabay si maaragtay wuxuu ka hadlayaa wadaniyada. maalmahan waxaad moodaa inaan xagga wadaniyada ka raranahay, waayo waxaa iska jira duruufaha adduunka ka jiray waqtiga dhibaatada dadkaagu ku jira. markaad aragto run ahaantii way kuu kalifaysaa inaad markasta wadaniyada ku saabsan aad ka tiriso. gabaygan waa gabay aan u bixiyay dardaaran. bishan hadda aan ku jirno bishii hore dhexdeeda soo baxay. waxaa la gabayga dardaaran baa la yidhaahdaa. wuxuu ka hadlayaa ummadda Soomaaliyeed sida wanaageeda iyo maaragtay soo duunkeeda iyo isla shaqaynteeda iyo maaragtay isla kalgacal uga dhaxayn karo sidii ummadda Soomaaliyeed loo walaalayn lahaa ayuu daaran yahay gabaygu. waxba yaan aragtayda ku daarinin wixii maaragtay isaga uu ka hadlay gabaygu wuxuu sheegayo isaga gudihiisa aad ku fahmi doontaa. gabaygu wuxuu yidhi: axmedow ayaamahan ma marin erayadaydiiye ma afeefin maansooyinkii uurka jiibsaday muddaan aamusnaayoona mugtiba arag dhammaanteede markaan hadalka oodaba waxbuu uurku tabayaay inaan gabay aroorshiya ma rabin erayga suugaane anigoo naftahan u dhalan oo liita eraygaygu aanasteeyo maantana midaan adag haydaasha arligaynu joogniyo adduun afarta waaxoodba afrika iyo aasiya ilaa uunka dunidoo dhan waxaa jira ammaandarro khalqigu waa ogsoon yahaye ha yeeshee waxay aamineen armi iyo xooga waxay wada ilaalsheen dantay wada asteeyeena ha yeeshee waxaan taa ogeyn ummadda qaarkeeda igahana ujeedada murtida ereyga luuqdeed. ummad yahay adduunyada degtee mawla ku abuuray, ummad yahay awow iyo awow aamin garan weyday, ummad yahay danteedaba ogeynay gaalku ku adeegtay, ummad yahay akhlaaqdii iyo sharciga diiday amarkiiba, ummad yahay waxaan eeba farin ku andacoonaysa anbatay hadmaad waanadiyo qaadan eragay. duulkii eeba rogayaa xaqay wada ilaawaane ma arkaan dantoodoo samaha ooda laga saariyay iyagoo walaalay nacbisu afduubaane maba ogeynay aafa tahay dhiig la ololshaaye. ummad yahay walaalaha ahee taalla aradkeenna is-irsaaqa eebahay waa rabaa duul is-aamine. macnaha Soomaalidu walaala inay iska dhigtaan oo meel kastoo ay joogaan dadka iska aanaystaan oo maaragtay ay dad walaalaa noqdaan buu gabay uga hadlayaa. macnaha iswalaalaysta ilaahay dadka is-aamina ee macnaha wanaag isku aamina waa jecel yahay buu markaa gabaygu leeyahay. is-aamina is-irsaaqa eebahay waa rabaa duul is-aamine. afartaa ileeyahay miyaan aada ka higaadsay afar kalena waan eegayaa sidii abwaaneedi adi sababo ogada galgala aradkii mooyaale dooxadii afgooyee nugaal faafanagaheeda iimay galbeed awaariya jijiga sabada oodweyne xamar iridaheediiyo tog dheer aaran lagu doogto beledweyn afaafkeeda iyo ururka Soomaali arli diinta loo aaday iyo ummadda reer raaso intaasoo adduunaa dad yahow edab u taalaaya is-aamin ilaahay wanaag idin abaasiye. afartaa intaan isaadiyey miyaan aada ka higaadsay abwaanada sidoodii miyaan ari ku faaleeyey inaad gabayo tirisiya waa loo dhashaa hadal abwaaneede ma abuuray waa eraya ummadi ayda. ummad yahay dhammaanteen xilbaa eeba noo diray abwaan iyo jilaa iyo fanaan madaxda oo toosta nin waliba awoodiisa uu fala itaalkiisa aragtida dadweynuhu qabiyo amarku soo jeesto aftidoo la qaadaa wanaag lagu uruushaayo is-adeeca waxaa laga helaa aayadii rabbiye ma aflaxo ninkuu eebahay amarka seejaaye u dulqaado adigaa u madaxoo eeba kuu xulay aayadaha qur-aanka iyo ku xukun diinta allaheena ka cabsoo inkaaraha jiro
yaanad ku aafoobi tudciyadaas u dambeeya ka cabsoo inkaaraha jira yaanad ku aafoobi dadka waxay la hadlaysaa si gooni waxay ula hadlaysaa madaxda dadka u haysa xilka yani run ahaantii qofku markuu xil qaado soomaalida waxay tahaa nin xil qaaday eed qaad waxaan ummaddan adaa lagugu eegaya adaa ka mas-uula wax dhib kastoo soo gaadha siday diintu inoo sheegtay adaa macnaha ka mas-uula marka aayadaha qur-aanka iyo ku xukun diinta rabbigeenna ka cabsoo inkaaraha jiro yaanad ku aafoobin labadaa tuduc iyo tuducyada ka horreeyaba waxay ka hadlayaan dadka madaxda suugaanta maaragtay aan kula dardaarmaya ayay ahaayeen marka gabaygu waa gabay iskeer gaaban laakiin ujeedo fiican iyo muxuu gudbinayaa ribood aada u qiimo badan marka intaasuu gabaygaasi igaga egyahay aada iyo aada u mahadsanyahay saaxiibkan haashim oo inoo marinaya gabaygaas aada iyo aad ka qiimo badan ee qiirada leh ahna dardaaran gabayga magaciisu waa dardaaran waad mahadsantihiin insha allah